halkani waa BBC oo London kaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada telefoonka bogga internetka iyo Facebook oo aad toos inoga daawanaysaan كل وعنا خيارته وذا هنا قال حريرتاي وقلب جمعة شنت بيش ماي سنة كاللبا كون يتضبية طبعا برنامج كان واحد كم غلي دونتان ضد كسابسن ان سفر كما دحوينها صوماليا إثيوبيا قضبضة ورك عالم كان waxa ugu waaweyn askari Amerikaan ayaa lagu dilay Soomaaliya laba kalena waxa lagu dhaawacay dagaalkaasi oo ka dhacay meel u jirta magaalada Muqdisho 60 kiiloomitir dalkani Britain xisbiga conservative-ka talada haya ayaa guulo fiican ka soo hoyay doorashadii golayaasha deegaanka barnaamijka waxa isku soo duway Axmed Cabdinuur aniguna waxaan ahay Mawlid Xaaji Cabdi waa mar kale iyo barnaamijkii dooda Jimcada I'm hesitating between English and French but I made my choice waa tahay goor dhow ayaad maqli doontaan halkaan naga dhigaysanaysaan waa London waa tahay waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka BBC-da galabta Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa inoo waramaya mawlid aad baad u mahadsan tahay militariga Mareykanku waxa uu sheegay mid kamid ah ciidamadooda khaaska ah ee sida gaarka u tababaran in laga dilay Soomaaliya laba kalena laga dhaawacay mar uu socday dagaal ay la galeen xoogaga shabaab warqoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in askariga laga dilay meel ilaa 60 kiiloomitir magaalada Muqdisho kaga beegan dhanka galbeed waxaana ay sheegeen ciidamadoodu inay caawinayeen ciidamada Soomaaliya Britain oo doorashadii guud ay usbuucyo u naga xigaan ayaa xisbiga talada iyo conservative-ku guulo fiican waxa uu ka soo hoyay doorashooyinkii dawladaha hoose kala barac codadkii iyo in ka badan oo la tiriyay ayaa xisbiga conservative-ku waxa uu helay in ka badan 300 oo kursi oo golayaasha deegaanka ah halka xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Labour-kana uu lumiyay ilaa 250 kursi oo dawladaha hoose ah waxaase taageeradiisu ay burburtay oo dhulka galay xisbiga Yurubdiidka ah ee UKIP la yiraahdo oo dad fara badan oo codkooda siin jiray ay u wareegeen dhinaca conservative-ka madaxa banka maalgashiga ee Mareykanka ee Goldman Sachs ayaa waxa uu ka digay London oo ah xarunta maaliyadda fadhid inay noqon doonto marka wadankani uu ka baxo midowga Yurub Lloyd Blankfein waxa uu sheegay BBC-da in bangiga oo ay Britain uga shaqeeyaan 6500 oo qof uu diyaarsaday qorshe ku talagal ah oo shaqaalihiisa uu ula wareegi doono Yurubta weyn taasoo ku xiran buu natiijada wadahadallada Britain ay uga bixi doonto midowga Yurub dhinaca kale gudoomiyaha golaha reer Yurub Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu sheegay in af Ingiriisku uu sii luminayo ahmiyaddii uu Yurub ku lahaa waxa uu la hadlayay ergooyin wadanka Talyaaniga kaga qayb galaya shirweyne midowga Yurub waxaana uu u sheegay luqadda uu door bidayo in uu ku jeediyo khudbadiisa I'm hesitating between English and French but I made my choice waxaan isku hayaa Ingiriis iyo Faransiis laakiin midkaan rabay waan xushay waxaan ku hadli doonaa Faransiis waayo luqadda Ingiriisku muhiimadii ay Yurub ku lahayd way luminaysaa sababta kale waxay tahay Faransiisku doorasho ayay galayaan axadda dambe waxaanan jeclaan lahaa inay fahmaan waxa aan Yurub ka sheegayo iyo waxa aan dawladaha ka sheegayo slowly but surely English is losing importance in Europe kuuriyada waqooyi ayaa ku eedeysay Mareykanku inuu wadanka kuuriyada koonfureed la maleegayo shirqool la doonayo in lagu kharijiyo hogaamiyaha Pyongyang Kim Jong-un dawladda kuuriyada waqooyi waxa ay sheegtay in koox argagixiso ah oo CIA-da Mareykanku ay taageerayso iyo sirdoonka kuuriyada koonfureed ay qorsheynayaan in ay sumeeyaan hogaamiyaha wadankaasi oo dabeeta uu u dhinto 6 ilaa 12 bilood gudahood wadanka Shiinaha waxa si weyn loogu guuleystay diyaaradii ugu horeysay oo ganacsi oo nooca jadka ah oo dalka lagu sameeyo oo gashay duulimaadkii ugu horeeyay ee dalka gudihiisa ah telefishinka dawladda ayaa laga daawaday diyaaradaasi nooceedu uu yahay C919 oo kacaysa kuna degaysa 90 daqiiqo kadib airport ku yaala Shanghai Shiinuhu waxa uu rajaynayaa duulimaadka diyaaraddan inuu meesha ka saari doono saameynta diyaaradaha caynkana ee u gaarka shirkadda Boeing ee Mareykanka iyo Airbus oo Yuruba agaasimaha mashruucan Jing Zhuanglong iyo ku-xigeenkiisa ayaa bixiyay amarkii diyaaraddu ay dhulka uga haday ayna ugu soo degtay agaasime Jing Zhuanglong diyaaradda 101C919 wax kasta waa u dhan yihiin waxaanay diyaar u tahay inay duusho fadlan fasaxa duulimaadka hana la siiyo waa hagaag duuliya waa lagu fasaxay inaad diyaaradda kiciso
saddex madaxweyne oo horey u soo maray dalka south africa ayaa ku baaqay in wadaxaajood la furo oo lagu eegayo waxa ay u arkaan khatar ku soo foolle dimuqraadiyaddii waddanka madaxweyne jacob zuma cadaadis xoog leh oo isa soo taraya ayaa haysta qayb ahaanna waxa uu kaga yimid maxkamadda sare oo go'aamisay ama xeerisay in uu ku xadgudbay dastuurka mawlid cabdinuur sheekh maxamed isxaaq aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo inala socodsiinaya wararka b b c da galabta halkani waa london waa hagaag waxaa si toosa inaga daawanaysaan facebooka oo sidoo kalena aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kala duwan ee b b c da iyo weliba bogga internetka b b c somali.com barnaamijka dooda jimcaha waxa ila tahay ayaynu gudo gelaynaa 3 bil kadib markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa waxa halkaasi loogu soo dhaweeyay si ka duwan madaxdii dalka soo martay intii ka dambeysay burburka iyadoo markaana si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay booqashada madaxweynaha waxaa hareeyay dood iska soo horjeeda oo ku saabsan in madaxweynuhu uu qaaday dhabbihii ay hogaamiyaashii hore qaadeen ee xiriirka aadka ula dhow ay ula sameeyeen dowladda Itoobiya waxaa kale oo jirtay dood kale oo oranaysa ma ahayn sidaasi madaxweynaha waxa weeye in uu xiriirka uu la leeyahay wadamada gobolka Itoobiya ku jirta uu ahaada mid aad u wanaagsan oo tayadiisuna fiican tahay isla markaasna uuba ka daahay in uu xiriirro iyo weliba sadcaalo uu ku tago dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya isaguna wuxuu cadaystay mowqifka dawladdiisa ee ku aadan arrimaha Soomaaliya haddaba ma Itoobiya ayaa u muuqata inay bedelayso siyaasadii ay kula dhaqmi jirtay Soomaaliya mise waji cusub ayuu hadda u gudbayaa xiriirka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya dooda arintaas ayaan ku falanqeynana marka ugu horeysa aan soo dhaweeyo asxaabta barnaamijka ka qayb qaadanaysa aan u yeero marka hore aan ku soo dhaweeyo Cabdiwahaab Cabdisamad oo ku sugan stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi oo qadka Skype-ka muuqaalka kaga jira Cabdiwahaab soo dhawow walaal thank you so much aad iyo aad baad u mahadsan tahay Zakariya Xaaji Cabdi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo iyo dooda kaga qayb qaadanaya aan soo dhaweeyo xildhibaan Zakariya soo dhawow waayahay xildhibaan Zakariya aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa kale oo barnaamijka ka qayb qaadanaya oo stuudiyaha BBC da ee London ila fadhiya ambassador Saciid Nuur Yuusuf oo ahaa safiirka Soomaaliya ee Itoobiya oo muddo u joogay dalkaasi Itoobiya ayuu muddo ku sugnaa oo uu ka mid ahaa ergada diblomaasiyadda ambassador soo dhawow waayo aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijka ayaan jeclahay inaan u guda galo waxaan jeclahay ku hormaro Cabdiwahaab Cabdisamad waayahay waan u soo laaban doonaa Cabdiwahaab iyo martida aan waxa yar ku hormarno warbixin yar oo kooban oo wariyaha BBC da Cabdisaaq Xaaji Catoosh uu inoogu diyaariyay safarka madaxweynaha wuxuu ahaa safar isha lagu hayay safar Soomaali badan ay ku tilmaameen waxa ka soo baxa inay noqon doonto qiimaha iyo aragtida laga qaadan doono xukuumadda cusub ee madaxweyne Farmaajo inkastoo xilligii loogu talagalay safarkan inuu ku joogo madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa Addis Ababa la soo gaabiyey haddana macno weyn ayaa ka soo baxay oo xukuumadda Itoobiya waxay si caddaan ah u xaqiijisay luuqad aysan hore ugu hadli jirin oo ah midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya inay muqaddas tahay isla markaana wixii macaamil ah oo diblomaasiyad iyo arrimaha dibadda ah ay toos ogala hadli doonto dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaana safarkan lagu soo gaaray heshiisyo kala duwan oo uu ugu horeeyo la dagaalanka al-shabaab dhaqdhaqaaqa xuduudiyada Itoobiya iyo Soomaaliya iyo weliba maalgashiga labada dal wafdiga labada dawladood ayaa sidoo kale wada gaaray arrimo ay ka mid yihiin macaamilka guud ee dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya sidii loo soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha iyo dhadhanka luuqadii uu ku hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa loo fasirtay in Itoobiya wajigii hore ay bedeshay ayna hadda u muuqato mid ixtiraam weyn u muujinaysa xukuumaddan cusub walow wax ficil ah aanan weli laga arkin Soomaaliya waxaa ku sugan kumanaan ciidamada Itoobiya ah oo in badan oo ka mid ah aysan hoostegin howlgalka AMISOM sidoo kale Itoobiya waxay faragelin muuqata oo dhinaca siyaasadda ku lahayd
hannaanka iyo soo tooska siyaasadeed ee qadiyadda soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedyo fara badan oo ay iyadu garab iyo gaashaanba u tahay ilaa iyo hadda xiriirka labada dowladood waxa uu noqon doonana waxaa laga markhaati kici karaa marka dowladda etoobiya ay beddesho aragtida ay ka aaminsan tahay guud ahaan masiirka soomaalida dowlad ahaan iyo dal ahaanba cabdirasaaq xaaji catoosh aad iyo aad baad u mahadsan tahay waayahay martida barnaamijka ayaan haatan u gudagelayaa ambasadorka ayaan siinaya marka ugu horeysa ambasador sidee ayay u muuqan kartaa ama muhiimad caynkee ayay yeelan kartaa booqashadan waa mahadsan tahay mawlid waa idin salaamaya adiga iyo bahda b b c da iyo martida ku jirta dooda muhiimadda ay leedahay horeyna waa u lahayd dad derisa oo dowlado wada derisaan nahay jaara laysku baahan yahay in laga qayb galo wada tashiga iyo wax isla qabsiga labada dowladood iyo labada wadan iyo labada shacab sidaas awgeed muhiimad bay u leedahay weyn inay madaxweynuhu soo booqdo sida ayaguba ay u soo booqdeen horey wadanka kan Kenya iyo Haile-Mariam Ethiopia ay u soo booqdeen muhiimad bay u leedahay in la booqdo lagana wada hadlo xiriirka dhow ee u dhaxeeya labada shacab iyo labada dowladood waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ambasador Saciid waan kugu soo laaban doonaa Cabdiwahaab waad maqlaysaa ambasadorka adigu maxaad ku dari lahayd horta mawlida waxaa moodaa runtii yani in sida uu cabdirasaaq warbixintiisa ku xusay in yani xoogo luqadda maarta Ethiopia ku hadli jirtay sanadahan dambe ay bedeshay oo runtii luqad micnaha aad iyo aad muhiim ah la soo baxday maarta oo doonaysa ay ku aqoonsanaysaa qadiyadda iyo maarta iyo midnimada dalka Soomaaliyeed runtii wadanka Ethiopia waxa lagu tilmaamay inuu yahay regional power يعني wadamada Afrika markaad fiirisid koonfurta Afrika waxa uu weyn wadanka South Africa wuxuu ku dadaalaa inta badan yani kuwa qaaradda dhinaca koonfureed in amaan fiican la helo dhinaca kale markaad Nigeria weyn u baa yani galbeedka Afrika inta badan waxay ku dadaashaa inay sugto amaanka yani wadamadaas galbeed yani galbeedka Afrika ku yaala waqooyiga inta badan waxa lagu tilmaamaa inay hudmad u tahay wadanka Masar eegan aad bay ugu dadaalaan wada kasta ciidamo fara badan hadda ka jooga wadanka Liibiya oo doonay wadanka Liibiya inay ku soo dabaashaan nabad markii Ethiopia waxa loogu fadhiyay inay maadaama ay tahay yani rijinka gobolka weyn ay tahay inay Soomaaliya nabad ku soo dabaasho si markaa Ethiopia macnaha yani u naalooto laakiin waxa runtii aan shaki ku jirin in Ethiopia ay ciidamo fara badan Soomaaliya gudaheeda ka joogaan waxa jooga wadanka Ethiopia ilaa yani amisom waxa ka tirsan ilaa 4300 waxaa jira ciidamo waxaa jira Ethiopiana oo haba yaraatee ka tirsan amisom oo lagu qiyaasay ilaa 10,000 iyo wax la jira lagu qiyaasay dadka qaar waxay ku qiyaasay ilaa 10,000 qaar hatta 20,000 bay gaasiyaan gobolada macnaha yani galguduud Hiiraan Bay Bakool Gedo Jubbada hoose dhammaan waxaa jooga ciidamo Ethiopiana jooga oo runtii aan ka tirsan amisom aan ka tirsanayn oo qaarkood ay dhici karto macnaha yani ay sameeyaan macnaha yani waxa weeyaan in maamulada yani degmooyinkaas bay xukumaan maartay hatta wax kale iska dhacay yani DC ayaga raali keen hatta meesha iman karayo waxyaaba runtii waxa kale oo kamid waxyaaba lagu tilmaami karaa markii galmudug macnaha yani la sameynayay ciidan yani waxa loo diray macnaha Djibouti-na loo diray meesha Ethiopia way diideen ayaga tagay ayaga soo sameeyay marka goboladan dhan macnaha yani goboladan macnaha yani hadda la sameeyay maamulada loo sameeyay kulli Ethiopia qaybweyn ay ka qaadatay ka soo gudub yani waxa moodaa magaalada Baydhabo waxa ku sugan macnaha yani xerada military ugu weyn ee maanta yani wadanka Ethiopia uu leeyahay ayaa ku yaala dhinaca kale markaad fiirisid dhinaca diblomaasiyad markaad fiirisid Somaliland passportkooda ilaa hadda ka soconaya gudaha maanta wadanka Ethiopia yani magaalooyinka Garowe yani Kismaayo Baydhabo yani Hargeysa waxa ku yaala license office ku yaala license office kaas wuxuu u shaqeeyaa sida macna yani wuxuu u shaqeeyaa maartii yani wuxuu u shaqeeyaa maartii sida macna yani waxa weeye safaaradda kale u shaqeynaya marka waxaan waa reality markii rhetoric laga soo baxay reality waxa weeyaan wax kale iska dayaan hatta yani xuduudka ku teedan Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ma imanka gacanta ku hayo xukuumadda wadanka Ethiopia gacanta ku hayo xukuumadda way aad oo mahadsan tahay Cabdiwahaab laakiin arrimahan soo muhiim uma ahan marka ammaanka wadanka gaar ahaan Ethiopia iyo Soomaaliya qudeedaba walaal waxa weeyaan haday maanta Ethiopia doonaysa inay nabadayso Soomaaliya bilooyin kuma qaadanaysa laakiin waxa fiican in mindset la bedelo maadaama macna Ethiopia maanta ay dhayar xukuumayaan firfircoon maskax furan ay xukuumayaan waxa wanaagsan markii inay ka shaqeeyaan amniga gobolka ay ka shaqeeyaan dalka Soomaaliya ay dejiyaan Ethiopia ay hor u kacdo Soomaaliya ay hor u kacdo oo marka la bedela yani fikradihii ahaa colaad ku aadan labada wadan la bedelo
in nidaamkaas meesha ka baxay waayahay cabdiwahaab sidaas igu jir marka zakariya waa ku siin doonaa xildhibaan zakariya iga raallihow waxaan rabaa arrintaa ka hadlaysa cabdiwahaab ayna dhici kar dad badan inay qabaan waa arrinta uu leeyahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxbaan ka bedelaynaa codkiisa waan maqli doonaa goordhow laakiin ii kaadi wax yar xildhibaan zakariya waad maqlaysaa dooda adigu maxay kula tahay xildhibaan zakariya may maqlaysaa qadka telefonka ee magaalada gaalkacyo xildhibaan zakariya waay xildhibaane haddii aad dhegaysanaysay dooda waad maqlaysaa ambassador Saciid iyo Cabdiwahaab waayahay waa ku soo laaban doonaa ambassador waad maqlaysaa Cabdiwahaab wuxuu leeyahay Ethiopia waxaa looga baahan yahay wax badan inay samayso adigu muddo ayaad ku noolay Addis Ababa oo dhinaca diblomaasiyadda Soomaaliya ayaad hogaaminaysaa ergadii halkaas ku sugnayd ma ku muuqata in booqashadani waxaas ay bedeli doonto oo meesha ay ka baxayso eedaha iyo tuunka Soomaalida qaarkeed ay qabaan horta hadday jirtayba eedo iyo tuunkaasu waxaa loo baahan yahay wax cadayna midda kale dowladda Ethiopia inay Soomaaliya waa nabadayn kartaa waa waxayn kartaa la leeyahay Soomaaliya dad ajnabiya iyo dowlado kale ma nabadayn karaan waxaa nabadayn kara dadka iskale haddaan Ethiopia ka sugno inay noo nabadayso oo wax noo qabata annaga 20 sano dambaan dib u soconna innaga ayay tahay inaanu wax qabsanno danteennana ka shaqayno laakiin dowladda Ethiopia waxaa naga dhaxeeya jaarnimo iyo derisnimo waxaanu yeelan karnaa wax wada qabsi xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka tacliinta baanu wada qabsi ka yeelan karnaa umana arag anigu Ethiopia inay in wax la isla qabsado ay diido laakiin marna ma qirsani Ethiopia inay intay soo gasho wadanka ama wax ay noo nabadayn karno waa la iscaawimi karaa sida haddaba ay ugu jirto laakiin waa la iscaawimi karaa waxna waa la isla qaban karaa xiriirka naga dhaxeeya waa inuu ku qadsadaa in nabadgelyada xiriirka naga dhaxeeya waa inuu ka mid noqdo sidii wax wada qabsi loo yeelan lahaa waa inuu noqdo mid isqiimayn iyo qadarin leh laakiin ma ahan inay intay noo soo diraan ciidamo iyo waxyaalo noo soo diraan ay wax noo qabtaan ayagu anu marna ma qirsi ayaga iyo dowladaha kale wadanka adduunkaba ka tirsan waayahay ambassador Saciid Yuusuf Nuur waa kugu soo laaban doonaa Cabdiwahaab adna waa ku siin doonaa Zakariya xildhibaan Zakariya qadka telefonka cilad ku jirta awgeed waa in isku dayi doonaa inaynu helno laakiin daawadayaal ilaa 1000 ku dhow ayaa hadda si toos ah barnaamijkan Facebook uga daawanaya si weyn ula socda idaacaddana ka dhageysanaya marka qaarkood fariimo ayay soo direen aragtidooda ayay doonayaan halkan inay ka qayb qaataan waxaan jeclahay inaan ku hormaro marka mid ka mid ah dhageystayaasha oo la yiraahdo Maxamuud Xeef magaalada Burco ayuu fariintan ka soo diray magacaygu waa Maxamuud Xeef waxaan joogaa xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxay la tahay hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia mid aan sidaasi muhiimad u lahayn waayo waan ognahay fargelinta Ethiopia ku hayso dalka Soomaaliya iyadoo gobollo ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ay si dhow qaar ka mid ay gacan saar u leedahay taasoo ay ugu wacan tahay awoodda dowladda dhexe ee Soomaaliya oo liidata marka safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Ethiopia xiriirka labada dal Ethiopia Soomaaliya waxba kama soo kordhinayo sidii hore ayuu ahaanaya balse arrinta muhiimadda leh ayaa safarka madaxweynaha oo soo raagay balse haatan wayna rabay inuu Ethiopia tagay Ethiopiana waji cusub ay doonaysaa inay ka samaysato madaxweyne Farmaajo oo isagoo ku adag dalka Ethiopia marka la eego madaxweynaha isaga ka horeeyay waa maadantihiin BBC Soomaali aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Xeef dhageystayaasha kale ee codadka noo soo dirana sidaas si lamid ah ayaan halkan ka soo gudbin doonaa ra'yigooda iyo kuwa Facebooka fariimaha ku soo gudbiyay waxaan jeclahay inaan u wareego stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi Cabdiwahaab Cabdisamed Cabdiwahaab dad badan waxay leeyihiin Soomaaliya dhowr iyo 20 sano ayaa dagaal ka jiray
burbur ku jirtay dagaal dalal shay ku lug lahaayeen soomaalida dhexdeeda dagaal isku laysay nus qarni kadib waxay dad badan qabaan inay tahay xilligii ugu habboonaa oo dadka Soomaalidu ay nabad dhexdooda ka sameyn lahaayeen dadka dariska ah nabad la samaysan lahaayeen oo Ethiopia ku jirto oo Kenya ku jirto marka taas marka ma ku imaan kartaa dadaalkan hadda ay wado dawladda Soomaaliya ee hadda cusub hadda runtii waxaan shaki lahayn in yani dalka Soomaaliya dhibaato far badan ku jiray yani 25 sano ugu dambeysay ha ahaatee laakiin haddii maanta xukuumadda iminka talada haysa ay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka bixiso ilantana ka tirtumada Soomaaliyeed oo ay Soomaaliya istamata bixiso Soomaaliya macnaha heshiisiiso waa arrinta ummadda Soomaaliyeed muddo badan ay sugayso weeyaan waxa hadda looga faray dawladana waxa weeyaan waxa loo yaqaan inay samayso waxa loo reconciliation ay samayso in ummadda Soomaaliyeed yani gudaha dalka ay ku heshiiso gacmaha isu saarto sidoo kale Soomaaliya u gartaan cadawgooda iyo maartay saaxiibkooda u gartaan waxaad arkaysaa markaan Ethiopia dib ugu noqdo wax yar aan dib ugu noqdo 25 sano ugu dambeysay Ethiopia runtii Soomaaliya faraha ay kula jirtay taas cid la weydiinaa ma laha maxaa yeelay markaad eegtid xataa igad facilitation office markaa fiirisid waxa inkastoo yani regionku iska lahaa haddana prime minister Malestanawi ayaa sameeyey waana xafiiska macnaha waxa weeye yani sahlay in Soomaaliya gobol loo kala qoqobo maarto Soomaaliya administration regional administration la sameeyo waa gobolka ka dambeeyay buu ahaa marka si kastaba ahaata hadday maanta Ethiopia doonayso inay bedesho يعني colaada ku wajahan Soomaaliya oo maanta qaab u samayso run ahaantii waxa weeyaan waa arrin loogu fadhiyo maxaa yeelay cadow jiiraankaada huraya yani saameyn buu kugu yeelan karayaa marka inay maanta bedesho codka bedesho oo yani approachka ay bedesho run ahaantii waa arrin aan runtii aan soo dhaweynayna mid kale waxa weeyaan Soomaaliya maanta waxay u baahantahay saddex shay mid ugu horeysa waxa weeyaan in la helo dawlad yani dad hoggaan haya oo hoggaankaasi macnaha shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoon yihiin oo kalsooni badan ka haysta uusan ahayn hoggaan macnaha yani dadka shisheeyaha ay keeneen oo ummadda Soomaaliyeed ku kalsoonayn midtaa weeyaan waxay u baahan yihiin yani dawlad wanaag la soo bandhiga waxay u baahan reconciliation in la sameeyo oo yani gudaha dadka Soomaalida ah in lagu heshiisiyo oo dadka Soomaaliyeed qarnimadoodii iyo qadiyadoodii iyo wadaniyadoodii dib loo noqleeyo taas ay runtii maanta ummadda Soomaaliyeed muhiim u ah oo haddii maanta ummadda Soomaaliyeed ayagu ay midoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo ay isu turaan oo ay isu tanaasulaan oo ay wadankooda u turaan oo ay shicibkooda u turaan waxa weeye cadow waa ka istaagaya laakiin waxaa la leeyahay hoggaan saxa oo wadani ah hoggaan saxa oo wadani ereyga wadani waa muhiim hoggaan saxa oo wadani ah oo wadanimadu ay dhab ka tahay oo ay ka go'an tahay in maanta ummadda Soomaaliyeed ilanta ay ka tirto ay ka go'an tahay in dadka Soomaaliyeed ay mideeyaan ay ka go'an tahay in marka la sameeyo reconciliation la sameeyo oo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay ee tuuga kala dhaxgalay la isu geeyo oo markaasi marka loo yareeyo yani faragelinta qaawan ee ay ku hayaan quwadaha shisheeye gudaha Soomaaliya ay ku hayaan oo marba magac loo bixinayo marba magac uu imaanayo waxay u baahan ummadda Soomaaliyeed inay helaan constitution ama dastuur ay codayaan oo ayagu ay leeyihiin oo haba yaraatee ka turjumayo midnimada iyo sharafta iyo qadiyadda Soomaaliyeed ka turjumaynahay Cabdi Wahaab laakiin dooda jirta waxay tahay markii la doortay bishii Febraayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dad badan ayaa waxay lahaayeen wadaniyaddii Soomaalida ayaa arrintan ku timid oo ka dhalatay marka maxaa taas diidaya soo hadda ma muuqato in dawladdani ay ku socoto dariiq caynkaas oo kaliya shaki mala walaal yani waxa weeyaan qad yani dhalinyaradii baarlamaanka ku jirtay ee runtii hadda soo kacday dhalinta hadda soo kacday ahaa oo dareemay inay wadaniyadu macnaha ay muhiim tahay ayaa codkooda isugu geeyay Farmaajo isugu geeyay waana maanta waxay ka dhashay natiijada maanta aan maanta helayno waana natiijada maanta yani maanta waxaan haynaa in xataa wadamada jiiraanka ay bedeleen qaabka Soomaaliya macnaha ay u macaamilayeen ay bedeleen run ahaantii hadda waxa moodaa runtii inay bilaabatay Soomaaliya inay fahmayaan oo ay dib ugu soo noqonayaan in waxa wadaniyada la yiraahdo ay muhiim tahay in dalkooda hooyo uu muhiim u yahay in dadkooda hooyo dadkooda macnaha ay u turaan oo marka ay runtii muhiim u tahay inay marka ku dabaalaan ay mideeyaan dalkoodii taas markay sameeyaanna waxa weeye wadamada jiiraanka ee dadka Soomaaliya maanta ka soo horjeeda intaba run ahaantii waxay aqrinayaan nooca hoggaaneed ee maanta Soomaaliya ay yeelanayso runtii waxaan kaga mahadcelinayaa Farmaajo talaabooyinkii banka uu qaadayo waa talaabo loo baahnaa runtii talaabo sax ayuu qaadayaa waa talaabo lagu soo celinayo qabka ummadda Soomaaliyeed waa talaabo lagu soo celinaya midnimadii iyo qadiyadda ummadda Soomaaliyeed waa talaabo lagu soo celinayo yani hankii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celinayo waa talaabo lagu soo celinayo ummadda Soomaaliyeed
inay macnaha waxa weeyaan inay wada saxa qaado oo marka ay midowdo waa talaabo lagu soo celinayo in wadamada jiraanka ay aqoonsadaan yani qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay qof wadani ah oo Soomaali ah oo hoggaan Soomaali u haya waayahay aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa dhegeystayaasha BBC-da qaybo kala duwan ayay barnaamijka kaga qayb qaadanayaan magaalada tan London dhegeysta naga soo wacay aan iminka u yeero magacaaga adoo ku bilaabaya Nairobi London ma maqlaysaa dhegeystaha ka soo hadlaya London waayahay waa ku soo laaban doonaa qadka ayaa ka go'ay dhegeystayaasha kale ee fariimaha soo duubay ayaan haatan u wareegayaa canjeex carab ayaan hadda siinayaa fursad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلام يا بهذا ورباهن تبي بيسدا يدقيس تياش كحران أنا جوا عنك عرب وحندون يهنا فكرة كديبتو برنامج كان لقى هذا يومان تا بي بي سوسو بندكتي وحن فيلا إثيوبيا ودل دريسا دل وين سامين وين كل الصومالية إن بدنا أرميه الصومالية فرها كل جري هسه عاد وحن قبا إثيوبيا أنا وحمانا صومالية إمكا وهين عن كأهين إني مدحدي الصومالية أي كسر بحوالين قالين تودا farmaajina uu buuxiyay maanta aad ayaanu u taageeraynaa fikirka ka soo baxay waa hagaag aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi xagga facebooka dhegeystayaasha fariimaha ku soo qoray bal markaan aan fursad siiyo diini maxamuud ducaale oo jooga Nairobi wuxuu yiri aniga waxaan qabaa buu yiri haddii laga faa'iideysto wejiga cusub ee ay la soo baxday Ethiopia in aynu wax badan qabsan karno sababtoo ah maanta waxa weeqay awoodii dawladda Soomaaliya waan qabaa inay tahay maamul goboleedyada oo ka faa'iideystay tabaryarida dawladda Soomaaliya marka waxaan leeyahay aynu isku tashanno BBC-da way mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamuud ducaale waa yahay ambassador Saciid ayaa iminka u soo laabanaya ambassador arrinta dad badan ay ka qabaan ra'yiga oo ka soo bixinayaan waxa weeye in dawladda Itoobiya inta badan lagu tilmaamo inay isku si ula dhaqanto maamulada gobolada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo si iska feeriyaaca ay u qaabisho taas oo hadda laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan ka bedelayna man waa taqaanaa mas'uuliyiinta Itoobiya waxa ay sheegaan ma ka dhabayn doonaan mawlid horta Allahu yaclam inay ka dhabayn doonaan iyo inaysan ka dhabaynayn laakiin aanu noqonno muxuu ahaa Itoobiya faragelinteeda muxuu ahaa horta haddii adigu aadan lax walba shilalka isdhashaa lagu qalaa haddii adigu aadan meel aad isdhigin Etoobiyana kuma faragelin karto mid ka quwad weynna kuma faragelin karto waxaan se qabaa inay Etoobiya jeceshahay in Soomaaliya ay degto ama gobol ha u degto ama ha u degto sababtoo ah dabka ka baxa Soomaaliya meel kama aadayso ayaduna dabkaasuna waa gaaraya sidaas awgeed ma qabo inay dadku waxay dhahan 500 oo sanaan cadaawad isku haynay dhibaato naga dhaxaysay 500 oo sano laga soo gudubiyay hadda waxaan maraynaa adduunka hal qola marka Ethiopia anigu kulli intaan joogay iyo inta hadda laga arkaba uma arko wax weyn oo ay Soomaaliya dhibaato u geysan karto inta anagu isku geysanaa ka badan inta ayadu noo geysato marka haddaan anagu isku nimaadno oo dadkeenu isku yimaado waana socotaa runtii oo markii warlooradu jireen markii ka sii dambeysay markii madaxweynaashii hore ilaa hadda waxbay ka fiicnaanayaan in marka la degdega ma ah waxbay ka sii fiicnaanayaan waa gaaraynaa mana ahan gobolada muxuu ahaa iyo maamuladu in toos loola xiriiro muxuu ahaa dowladda Ethiopia dowladda federaalku waxay leedahay difaaci iyo amnigi waxay leedahay muxuu ahaa arrimaha dibadda waxay leedahay socdaalkii waxay leedahay lacagihii waxaasoo dhan horta waa wax aan la taaban karin laakiin hadday jirto in dowlad goboleedyadu waxyaalo aan wax weyn ahayn loo qabto dee waxaa loo qabtay Soomaaliya oo dhan ee looma qaban dowlad goboleedkaas kaliya sidaas awgeed wixii taraaraxa dowladda federaalku xaq bay u leedahay inay qabato laakiin waxyaalaha yaryar oo la qabanayo
oo ama ha u qabato Ethiopia ama Kenya ha u qabato ama Carabuhu ha u qabteen waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa lagu taageero haddii wax la dhisayo oo wax la samaynayo hadda dekedaha meel laga sameeyo ama berberaha noqoto ama boosaasaha noqote ama garoomaha noqote waxa halkaa ka soo baxa Soomaali baa iskale oo dhan malahan muxuu ahaa meesha yaroo laga sameeyay waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Ambassador Saciid waa kugu soo laaban doona martida kalena waa siin doona waqti saacadda Afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 5:00 barnaamijkan waa dooda Jimcada waxaynu kaga hadlaynaa xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya muxuu ka bedeli karaa safarkan uu maanta ku tagay magaalada waa safarkan dhawaan uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo barnaamijka waa noo socon doonaa waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan haatan u wareegayaa magaalada Gaalkacyo xildhibaan Zakariya sidee kula muuqataa dooda waad la socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya haatan sidee kula muuqan karaa dooda wax badan kala macna socon mar dhaweydun baan maqlay waxa weeye xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya isuma dheela tirayn 26 sano muddo waa dadkii xiriir ma ahayna wuxuu ahaa qolo ka xoog badan ku degtay sababtoo ay u badnayd ummadda Soomaaliyeed dad ka mid ah hogaamiyayaal isku sheegaya oo Ethiopia isu dhiibay laga soo bilaabo weeraradii laga soo qaaday sideetanadii meeshaas Ethiopia laga soo qaado Soomaalida qaarkeed ka soo qaadeen marka hadda Soomaalidu kuleylkii hadduu gaaray wax badan baanu u sheegnay niri Ethiopia khayr idin ma hayso waxaad moodaa in hadda aad moodid inay muxuu ahaa baraarugeen waxay la tahay mar haddii aad Soomaalidu haddii ay kacdo baraarugto oo midowdo iyadoo ay muxuu ahaa is-cashato hadda markaas Ethiopia waxay ula dhaqmaysaa sidii dowlad la siman laakiin haddii hadda qaarintay yaacaan muxuu ahaa hoosta ka galaano muxuu ahaa iyagoo ka cararhayo walaalkood oo wada hadal ka dhuumanaya hadday rabaan waxa dhacay baa dhacaya iyo sida hadda Soomaali tahay waxaan rajaynayaa in wax badan ay iska bedesho Ethiopia sababtoo waxa weeye iyada laftigeedu 8 bishii February wixii dhacay way ogeyd dowladdu way xisaabtanaysaa laakiin nimanka fartooda aad u aqaanaayo inay wax ku damiyaan oo hadalkii ra'iisul wasaaraha muxuu ahaa shirkii jaraa'id ay qabteen isagii madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hadal muxuu ahaa damin ah oo seexin ah inuu ahaa iyo inuu dhab yahay maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda la ogaan doonaa waayahay aad baad u mahadsantahay xildhibaan Zakariya martida kale waan siin doonaa fursad hadalkaas uu sheegay xildhibaanku aynu maqalno markaa hadda We have no separation and division within the Somali leadership. As I said, the federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy and foreign policy. wax khilaaf iyo kala qaybsanaan ah nagalama dhexeeyaan hoggaanka Soomaaliya waxaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ula dhaqmaynaa inay tahay hay'adda kaliya ee mas'uulka ka ah siyaasadda iyo diblomaasiyadda dibadda iyadoo aan ogolaansho ka helin dawladda federaalka ee Soomaaliya Ethiopia iyo waddan kale toona ma ahan inay farageliyaan madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliya waxaan filayaa inay arrintani caddahay anigu qof ahaan ma aqbali karo in waddanna uu si toosa u soo farageliyo arrimaha dalkayga isagoo aan ogolaansho iga haysan Soomaaliyana waa sidaas oo kale ujeeddada oo dhan waxay tahay in la taageero dadka iyo dawladda Soomaaliyeed si loo helo nabad iyo xasilooni ugu dambaystana loola dagaalamo saboolnimada barwaaqana loogu keeno dadweynaha Soomaaliya ujeeddo kale kama lihin Soomaaliya waayahay aad baad u mahadsantahay Axmed Cabdinuur waayahay hadalkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayuu inoo turjumayay xildhibaan Zakariya ayaan ku laabanayaa hadalkan ma la aamini karaa su'aasha labaadna waxay tahay Soomaalidu marka Ethiopia haddii hadda diyaar u tahay sida inay samayso sida uga faa'iideysan kartaa tan koowaad ka hormar aaminaadda
anigu Ethiopia ilaa aan muxuu ahaa indhahayga ku arko muxuu ahaato waxa hadda ay 26 sano samaynaysay wax ka duwan aamin maayo waayo waa aqaana waxa ay maanta ku sheegaan wax ka soo horjeeda ayay muxuu ahaa galabtii ku sheegayaan subaxdii hadday war ku sheegaan galabtii ficil ka soo horjeeday sameeyaan looga jooge waxa weeye anigu ma aamini karo Ethiopia laakiin waxay Soomaalidu tiraahdaa quraanku faan baa isku fiiqsatay dadka Soomaaliyeed iyo dadka hoggaanka Soomaalida waxa laga rabaa inay iscashadaan isku kalsoonaadaan waa ka khayraad badan yihiin waa ka muxuu ahaa nin wanaagsan yihiin inay iyagu hoosta ka galaan oo dabadhil u noqdaan qoliyo buuraley degan oo muxuu ahaato xoolana muxuu ahaa 2 neef oo laa iyo kale xoogaa yar oo dhowr hektar abuurta oo beeraha inay hoosta ka galaan waxaan u leeyahay garan maayo 93 Ethiopia ugu dambeysay mar walbana waxaan akhrinahay fartooda akhrinahay waxaan akhrinahay dhaqanka ay Soomaalidu kula dhaqmaan 26 sano laha wardalkeena cishada waa la idin gumaysanaya waa la idin goosanaya ummada tira badan bay laqeen annagu aanu ka midnahay haddana meel wadan badlaho hadaal ku iska weynaaday dadkiisa ay leeyihiin waryaana gumayso islaama muxuu ahaa qarniga 12 hadii cid walba waa qaadanaysaa marka hawshu waxay ku soo aruuraysaa dadka Soomaaliyeed iyo hogaankooda iyaga laftooda dadweynaha laga rabaa hogaankii aan si sax ah u wadin oo karaamo iyo xornimo iyo hadaal ku roon yahay qabka ummadda Soomaaliyeed lahayd aan ku wadin inay diidaan inay saaro waa in adeerkay iyo waa qabiilkayga iyo waa xagga ay yiraahdaan adeer oo naga tagno gumaynaysile dadka Soomaaliyeed baa anigu hadda muxuu runtii aan soo jeestay in aan u sheego dambiga oo dhan annaguna leenahay muxuu ahaa Ethiopia hadda waa dawladdaas gabowday oo u baratay inay muxuu ahaa had boqol laqdo qoliyo naga badan bay laqday oo ramadu ka mid tahay ilaa milix inta aan muxuu ahaa taariikhda ka akhriyay ilaa hadda kuwa jooga isku strategy weeye Soomaalida hal strategy bay kala yihiin wixii macaamil ah iyo daris wanaag iyo hadaal ku reeyo wax isbaabsi iyo ganacsi iyo kala ganacsi anu dadna diidi karo taas laakiin oromada Ethiopia ay isla yihiin waa Ethiopia sida la xisaabinayo aad baad u maasan tahay oo kugu soo laaban doona xildhibaan Zakariya waxaan u wareegi doonaa goordhow Cabdisamed studio BBC da magaalada Cabdiwahaab Cabdisamed studio BBC da magaalada Nairobi barnaamijka waxaad ka dhageysanaysaan BBC dhinaca Facebook ayaa sidoo kale inaga daawanaysaan si toos ah muuqaal ah iyadoo in ka badan 117,000 oo qof ay barnaamijka u gaaray waxaana toos hadda u daawanaya in ku dhow 1,400 oo qof aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale FM-ka iyo mawjadaha gaagaaban ayaad inaga dhageysanaysaan waxaan jeclahay inaan markaan usoo laabtay stuudiyaha BBC da magaalada London Ambassador Saciid hadalkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu sheegay soo hadal wanaagsan looma fasiran karo waaba yahayba waxba lama sii fasiraya laakiin waaba yahayba waxa uu ku hadlay siduu u hadlay waa si wanaagsan ma la aamini karaa iyo lama aamini karana waa arrin kale aniga waxa ila tahay waxa qof kuu sheego aad wax idinka dhaxeeyaan oo wado bal inaad ka durstido aamintid waa runta Ethiopia cadaawad baa naga dhaxaysay dirid baa naga dhaxaysay ciidamadoodii baa halkan jooga laakiin inaan aamino oo aamin kaliya ma ahane wax wada qabsano oo wax qabsi kaliya ma ahane xiriir wanaagsan aan yeelano oo aan iska dhowrno annaguna ay sakaya dhowraan in muxuu ahaa ay noqdaan muxuu ahaa dantayada ay soo farageliyaan iyo faragelin ay nagu sameeyaan inaan iska celino oo dhahno suga saan ma ahane innaga ayay naga tahay taas waana arrintayada oo arrimaha dibadda iyo waxaas qaabilsan yihiin waana rajaynayaa qiimeyn haddii lagu sameeyo oo la dhowro inay faragelintaas istaagi karto oo hadday jirto waaya aad baad u mahadsan tahay stuudiyaha BBC da Nairobi ayaan u wareegayaa Cabdi Wahaab waad maqlaysaa hadalka ambassadorka iyo xildhibaanka maxaad ku daraysaa adigu horta waxaan ku dari lahaa ambassador Saciid waxaan weydiin lahaa waxaad ogtahay Ethiopia xilligii yani markii warlordka ay jiri jireen yani sida yani ay qorayaan ururada yani u dooda xuquuqda aadanaha sida ay qorayaan warbixino fara badan ay jooga ay diyaariyeen
sida ay qorayaan warbixin xataa ay qortay hay'adaha lagu kalsoon yahay inay xataa walwarka saaciideeyeen ay caawinayeen oo kaalmeynayeen si marka colaadda ay soo horiyaan waxaan ognahay in Ethiopia ay ka joogto ilaa 18,000 qiyaasta laga gaaray ilaa 10,000 in ka badan oo ciidan ah oo baarlamaanka Soomaaliya uusan ansixinin baarlamaanka Soomaaliya waxa kaliya ansixiyay waxay ahayd 4,300 oo ka tirsan ciidanka AMISOM intaasoo ciidan ayaa gudaha wadanka ku jira waxay Ethiopia yani ay qayb ku lahayd samaynta yani maamul goboleedka ay qayb ku lahayd waxay qayb ku leedahay inay kontrolsho xataa yani district commission ay kontrolsho tusaale ka soo qaad wadankeena soo qaada wadankeena maanta wuxuu ku faani karayaa in 500 oo kun oo macna qaxooti Soomaali u hayay 5 soo dhaafnay wuxuu ku faani karayaa in ilaa 100 kun oo Soomaali oo ganacsato inay ku nool yihiin oo hanti badan ka sameeyaan wuxuu ku faani karayaa intaasoo kun oo arday ah oo ka baxay jaacadaha wadankeena ka baxay in xataa maanta qaarkood ay Soomaali wax ka noqdeen haba ugu dambeeyay Allah u raxmade ninkii wasiirka hadda ugu dambeeyay la dilay yani Abbas waxa kamid ah gabar Soomaaliyeed ee Minnesota maanta joogto oo yani iyadana maanta yani soo gashay baarlamaanka wadanka Mareykanka yani bal sheeg Ethiopia waxay Soomaali u qabatay 5 soo dhaafnay waxa Abbas la inaan weydiiyo tamid weeyaan walaal waxaan ku weydiinayaa waxa Ethiopia dal jiirana weeyaan la shaka fiiha waxaan u baahanahay in Soomaaliya u baahan tahay xiriir fiican la sameystay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed xilligan maanta ay ku jirto inay u turaan bay ahayd xilligan maanta waayahay iga raalaho Cabdi Wahaab su'aashaadii markaa kaaga jawaabo ambassadorku adoo raaliya ambassador mahadsan yahay professorku horta wax qabadka warlooradii iyo waxyaalo kale ka sii dambeeyay iyo caawimaada la caawimahayay kaligood kuma ahayn Mareykanka markii aad xusuusatid maxkamaduhu qabsadeen joogeen buu wuxuu caawimahayay warlooradii oo dhan hub siiyey oo lacag siiyey inay qabtaan marka Kenya sidoo kale ayaduna xagga ayay dadka walahay Ethiopia ayaduna waa ku jirta laakiin tan Ethiopia waa runta Cabdi Wahaab muxuu ahaa inay faragelin jirtay waqtiyadaas oo dhan ay ku soo jirtay ay wax walba keenaysa laakiin annagay nagu xiran tahay inaanu isqabsano oo gacmaha isku qabsano oo aan wax keenno midda waxtarka iyo muxuu ahaa xag tacliinta oo aad sheegtay oo matalan wasiirka Allah u naxariiste uu ku soo bartay gabadha xagga joogta iyo kuwa badan oo kale oo fara badan yihiin qaxooti badan oo ay hayso horta Ethiopia qaxootiga jooga Kenya iyo kan Djibouti jooga iyo kan Yemen jooga Ethiopia waa jooga anu kulleyn markaan joogay 185 baa doolar cad joogtay oo meesha deganayd isla markaas dadka ku jira gudaha oo Ethiopia oo sababa iyo meelaha kale ku jira waa ilaa 185 waxa si guud soo ma garana marka intaasoo dhan waxbarashadooduna jaamacaday kaga baxeen wax badan baa jaamacad ka baxay kuwa badan baa hadda ku jira scholarship yay bixisa marka ayada ruuxeeda taas lagama riixi karo waayahay halkaas ii jooga Dr. Cabdi Wahaab iyo Ambassador Saciid aan xildhibaan Zakariya u dhigo hadalka aan u dhiibo hadalkiina wuxuu ka qabo Zakariya raali ahaada qadka waa ka baxay wuuga ay qadka telefoonka waa ku laaban doonaa aad baan naga cudur daaranana dhageystayaal idinka raali gelinayna dhageystayaasha ayaa qayb ka barnaamijka aan imika u baaqo Cali Duux Warsame oo Tanzania fariintan ka soo duubay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسين فرح وجوج تنزانيا وحسلام يا دمان إن شغلها BBC بعد البرنامج جمعها مدحوينها أرنتا مدحوينها أوتوبيا وبغضي ومدحوينها لوسد ويسكدوا المدحدي بغشة وكنت أوتوبيا horta waa arin in laga hadlo dad laga furo ma u baahna madaxweyne waa in si madaxda loo soo dhaweeyo caalamka si lamida loo soo dhaweeyo waaye waa madaxweyne qaran waa madaxweyne Soomaaliyeed oo madaxweyne umadiisa matalayo markii Ethiopia markii leedahay waxaan ula macaamuleynaa si ka duwan sidii hore oo asagaan u mareynaa maamulada raiisul waxaa ka cad in Ethiopia ay ahayd caqabada Soomaaliya ay wax walbana mar walba kala macnaha geey jirta Soomaaliya
arrinta kulley waa Ethiopia way caddahay xaalkeeda waa mahadsantii BBC waayahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi fariinta ka soo duubay waddanka Tanzania Xuseen la yiraahdo magaciisa waayahay dhegeystayaasha BBC-da xagga fariimaha soo qoray waxaa ka mid ah Samatar Xoosh wuxuu yiri waxaan salaamayaa martida iyo shaqaalaha BBC-da aniga fakirka aan qabo wuxuu yahay buu yiri Ethiopia waxay dhigaysaa dabin ay ku ridayso Soomaaliya waxayna doonaysaa inay damiso kacaankii shacabka iyo xildhibaanada أحمد إسماعيل قاري وحو يري ماد مركا wax ka sheegtid ambassador waxa uu soo qoray dabcan si fiican loo fahmi maayo Salebaan Imraan wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia si fiican buu u hadlay waxaana haboon in la aamino hadalkiisa Maxamed Deeq Mukhtaar Maxamed isna wuxuu yiri aniga waxaan dhihi lahaa Ethiopia ma ahan dawlad la aamini karo waayo waa danaysto waxaan rabin danta Soomaalinimada waana cadab ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajana ha aamin ayaan dhihi lahaa buu yiri waa fikirkayga Cabdi Geeso ku sugan Boorama isna wuxuu yiri wada hadalkan labada mas'uul heshiisada soo baxay yaa ka faa'iidaya inta badan su'aashaas waxaan jecelahay inaan siiyo Dr. Cabdi Wahaab horta hadday Ethiopia maanta go'aansatay inay Soomaaliya kula dhaqanto sida dawlad xor ah oo ayna faragelin gudaha ku sameeynin oo ayna macnaha ciidankooda ay kala baxaan Tanzania 1986 waxay gashay wadanka Uganda xilligaas markay gashay wadankii way nabadaysay wayna ka baxday madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne Yoweri Museveni ayaa talada qabtay maanta waad ogtahay wadanka Uganda waxa ka jooga ciidan Soomaaliya dalkaasi wuu tallaabo qaaday Ethiopia waxa loogu fadhiyaa inay wax loo yaqaan Africanism dadka inay Afrikaan yihiin dadka Afrikaankana ay walaalo yihiin nolosha iyo xorriyadda ay u baahan yihiin ee Soomaalidu u baahan tahay yaani horumarka Ethiopia u baahan tahay inay Soomaaliya u baahan tahay nabadda ay Ethiopia u baahan tahay inay Soomaaliya u baahan tahay taa haday fahmaan dhalinyarada imanka talada hay wadanka Ethiopia waxa la oran karayaa runtii waa talaabo si sax loo qaaday saan horeba kugu sheegay khudbadda hadda uu jeediyay Prime Minister uu jeediyay Haile Mariam uu jeediyay runtii waa khudbad lagu dirsaday waa runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa talaabo si sax u qaaday laakiin waxaan ugu fadhinaa in arrintaas uu taabageliyo uu ka dhabeeyo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida u hanto waxna waa rhetoric waxna waa reality هذا rhetoric way fiican tahay waa yaani music aad u qurux badan weeyaan laakiin waxaan Prime Minister Haile Mariam ugu fadhinaa in warkan uu hadda ka siday uu siiyay saxaafadu siiyay ummadda Soomaaliyeed ay ku diirsatay inuu ka dhabeeyo u muujiyo inay yihiin dad jiraan ah oo walaalo ah yihiin dad jiraan ah oo runta tala badan ay ka dhaxaysa yihiin dad jiraan ah doonaya inay Soomaaliya ku naalooto nabad ku naalooto haddii Prime Minister Haile Mariam taa laga helo macnaha waxa weeyaan wuxuu ka dhabeeyay khudbada imanka uu jeediyay laakiin ummadda Soomaaliyeed intooda wax baratay intooda macnaha yaani wax garadka ahba runtii yaani waxa weeyaan waxay ku jiraan wax afka qaad loo yaqaan wait and see bal sug bal wixii talabadan taxta bal sug hadii ay ficil u muujiso oo macnaha fiisaha ay siinaysa yaani regional administrators yaani madaxweynaha ka ay siinayso ay wadankooda galayaan oo arisoo lagu siinay ay joojiso hadii passport Soomaaliya ay joojiso haddii macnaha yaani ay aqoonsato xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ay dawlad qaran u aqoonsato waxaan u maleynayaa madaxweyne Prime Minister Haile Mariam waxa uu qaaday talaabo sax u qaaday maarta aad baad u mahadsantahay arrinta Soomaaliland soo hadal qaaday qof kamid ah dhageystayaasha ayaa fikirkiisa ka soo dhiibtay Ismaaciil Gasle wuxuu yiri jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu mataqaana qoraalka wuxuu ku leeyahay waa mid madax bannaan ka turuq iyo tun weyn ka dheer Soomaaliya farmaajo iyo Haile waxay ka wada hadleen wasaarada Ethiopia iyo ka wada Soomaaliya iyo shanteeda dawlad goboleed cagaha inay isku taagi lahaayeen waayahay hadalkaaga dhowr jeer waxaad ku jirtay ciidanka Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya Ethiopia waxay ku doodaysaa koox islaamiyiin oo qatar ammaankeena ku ah ayaa meelahaasi nagaga soo duula oo aan ugu tagayna meesha ay ka soo duulayaan doodaas ka waran Cabdi Wahaab walaal waxaad ogtahay Amisom waxa ka joogta Soomaaliya 23,000 oo ciidan ah waxa jooga regional administration yani oo wadamada goboladan yani xukuumaya regional administration ciidan cilmo fara badan ay leeyihiin ciidanka Soomaaliya ilaa 10,000 ilaa 15,000 lagu qiyaasay ciidan waxa loo yaqaan proxy war oo Mareykanka leeyihiin oo fara badan oo macna alfa group waxa ayaa jira ciidankan Ethiopiaanka aan Amisom ka tirsan ilaa 8,000 lagu qiyaasay qiyaastii ilaa 200,000 ciidan gudaha Soomaaliya ku jira wiil macna yani ciyaar tuula
oo micnaha ku nool oo ay ka badnayn 3,000 ilaa 5,000 aan ka badnayn ay maanta la tacaalayaan jibin laayihiin waxaas waxaa la yidhahdaa shibri heesa waxaas ilmaha loogu sheekeeyaa hadday dhab yihiin way nabadayn karayaan dhalinyaradan hubka haysata ee micnaha waxaweye dagaalamaya ciidan intaa la eg ayaa maanta hortaagan oo information soo qaadi kara oo intelligence gadan keeni karaya oo iskaashi samayn karaya haddii loo baahdo maanta ciidanka waa la baabiin karaya laakiin meesha waxaa ka maqan wax afka loo yaqaana political will ummadda ma ka go-an tahay dadka ciidankan gudaha ku jira ma ka go-an tahay inay Soomaaliya nabadeeyaan taas ay su'aal fara badan dood badan ay ka taagan tahay laakiin haddii ciidanka intaa la eg ay maanta gudaha Soomaaliya ku sugan yihiin oo ay la tacaalayaan ilaa 5,000 ciidan aan ka badnayn oo dhalinyaro ah oo tuulooyinka isku urursaday ay maanta ay jabin la yihiin Soomaaliya maanta waxa ka soo dollar waxa weey alf layl wa layla shakad alf layl wa layla ka socoto maartay Soomaaliya waxay noqotay theater of war noqotay meel qof kasta filgiisu ku jiray noqotay marka Soomaaliya ha loo turo Soomaaliya hatta la baqaado Soomaaliya hal mideeya Soomaaliya oo nabad ah waxay qayb ka tahay amaanka Itoobiya Soomaaliya oo nabad ah waxay qayb ka tahay amaanka gobolka Soomaaliya oo nabad ah waxay qayb ka tahay amaanka adduunka qayb ka tahay waxaan filayaa haddii taa ay hadda dareemi waayaan maanta waxay la tacaalayaan al-shabaab beri aysal bay la tacaali doonaan beri dambana waxay la tahay saadiqiina bilxaq wala haddana soo bixi doono waxaan waa wax istaba joogo weeyaan haddii Soomaaliya ay nabadeen waayaan ururadan islaamiyiinta ee hubaysan ee mayalka adag unbaa kusii badanaya sympathy fara badan bay helayaan marka waxaa loo baahan yahay in gobolka iyo wadamada jiiraanka ay fahmaan Soomaaliya oo nabada oo cageeda isku taagta inay oo amaankeeda haranta oo xuduudeeda haranta oo shicibkeeda haranta inay qayb ka tahay amaanka gobolka maarta waayahay aad iyo aad u mahadsan tahay cabdiwahaab waa kugu soo laaban doonaa xildhibaan zakariye ilaahay hadda waan ka cudur daaranaynaa qadka telefonka oo inoo geli waayey awgiis waynu isku daynaa inaynu helno haddii alla idmo aad baan idinka ka cudur daaranaynaa dhegeystayaal waayahay aan usoo laabto ambasador Siciid ambasadore inta badan waxaa jirta in marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda la yiraahdo haykalka diblomaasiyadeed ayaa muujinaya maqaamka la isku hayo ixtiraam ahaan madaxweynaha Soomaaliya si fiican baa loo soo dhaweeyay Ethiopia ma waxay dareemaysaa in kacaankii dhawaan dhashay aynu iraahno si kale haddaynu u dhigno shacabka Soomaaliya taageerada ay muujiyeen dowladdan cusub ee hadda dhalatay inay qiimaysay mise shakhsiyaad ahaan bay u qiimaynaysaa farmaajo horta wax shakhsiyana oo qof u gaara Ethiopia ay ku qiimaynayso ma jiro laakiin waxay qiimaynaysaa haday maxamed madaxweynaha saa u soo dhaweyso ma ahan asaga inay soo dhaweysay annagoo dhan iyo Soomaaliya oo dhan baa nolol soo dhaweyn hase yeeshee soo dhaweyntu kulley Ethiopia marka la imaanayo dhowr waxyaalood baa lagu yimaadaa waxaa muxuu ahaa AUD baa meeshaas igad baa meeshaas marka casumaad gaara official sidaan oo kale ay u dhacdo waa khasab dawlad kastana waata in sidaa loo soo dhaweeyo waa sharci diblomaasiyadeed laakiin dawladdii ka horeysay oo xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa dawlad la aqoonsan yahay oo ka baxday kumeel gaar ka ahayd sidaan ma dhicin markay official qofka loo casumo waa dhacaysa laakiin marka aan official loo casumin ama ay casumaadu saan ahayn ma dhacayso مثلا AU-da baa shirar ka jiraya madaxweynayaasha imaanaya waxa aeroboortka ku soo dhaweeya African Unionka madaxdiisa ayaa timaada siiba qaarkood iyo wasiir ka socda muxuu ahaa dawladda Ethiopia laakiin ma yimaadaan laguma soo dhaweeyo sida waa si gooniya marka muxuu ahaa official loo casumo madaxweynahaas waxa lagu soo dhaweeyaa maqaamka hadda madaxweynaha loo soo dhaweeyay oo kale waa wax sharci diblomaasiyad laakiin ma ahan in wax ka weyn kuwa kale siday u soo dhaweynayso ay naga hoos marisay mana ahan inay naga kor marisay waayahay aad iyo aad u mahadsan tahay cabdiwahaab ayaan jeclahay hadda inaan u wareego doctore dad badan waxay leeyihiin oo qaar fariimaha halkan ku soo qoraya ma ahayn madaxweynuhu inuu xilligan uu bilaabo xiriir ula sameeyo Ethiopia waxay leeyahay qaarkood sida fariimaha halkan ay ku soo qorayaan ballanqaadyadii uu muujinayo ee lagu taageerayay kama mid ahayn inuu sida degdega u sameeyo ra'yigaas oo kale maxaad ka leedahay adigu markii madaxweyne farmaajo la daariyay bayaankii ugu horeeyay ama khudbadii ugu horjeediyay waxay ahayd
in wadamada jiiraanka uu kula dhaqmayo ixtiraam iyo iskaashi kula dhaqmayo markii in wadamada jiiraanka uu nabadeeyo oo booqdo oo markaa yani uu kala hadla danaha u dhexeeya Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia waa arrin muhiim ah weeyaan walaal waxa weeyaan qofka jiiraanka kula ah adiga ma xulan kartid laakiin qofka saaxiib kula ah qofka adiga saaxiib kula waa xulan kartaa marka Ethiopia waa dal jiiraan la ah waa dad Soomaaliya jiiraan la ah marka inuu nabadeeyo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia inuu nabadeeyo madaxweyne Farmaajo xil baa ka saaran xil muqadas ah ama xil waajib ayaa ka saaran taa saas ayaan oran lahaa inuu tago waqtigan xaadirka Ethiopia ka dago la hadla madaxda Ethiopia danaha Soomaaliya oo kala hadlana arrin aad iyo aad muhiim ah weeyaan maxay ilmaan Ethiopia waxay si xun u faragelisay arrimaha Soomaaliya meel kasta ama gobol kasta waxa ka jooga ciidan gobol kastana waxay ku leeyahay office ay ku leedahay oo marka mathalan safaarad ahaan marka wadan saas ku soo dhaxgalay oo xuduudkaadi controlaya anigu la hadli maayo daciif ah waa doqonimo weeyaan waayahay aad baad u mahadsantahay iga raalaho waqtiga aad iigu yar xildhibaan Zakariya qadka ayuu ku soo laabtay waxaan ka hormarnay hal qof oo dhageysta oo Facebook ku soo qoray oo la yiraahdo Liibaan Xaaji Siciid Ganay wuxuu yiri xildhibaan Zakariya ayaan ku taageersanahay qodobada uu ka hadlayo xildhibaan Zakariya cid aan ahayn oo Ethiopia run u sheegi karta ma la laayahay su'aashaas ayuu weydiiyay isaga ayaa noo sheegi doona xildhibaan Zakariya aad baad u mahadsantahay waan ka xudur daaranaynaa in qadka telefoonka uu go'ayo su'aashaan ku weydiinayna waxa weeye marka xildhibaanadii madaxweyne Farmaajo doortay ayaa tir ballanqaadid uu sameeyana ku doortay ayaad kamid tahay Soomaalida xaggeeda oo baarlamaanka adigu aad ku jirto uu kamid yahay diyaar ma u tihiin adinku xaggiina iyo Soomaali ahaan in Ethiopia xiriir fiican la yeesho wax la qabsado waxay muxuu ahaayeeto Ethiopia 26 sanayna walaaqaysay la kala jabisay isku kaaya dirtay isku kaaya dhiibtay madaxda iyada muxuu ahaayeeto sidii dad shaqaalaha ay farta ugu yeeraysay waxa weeye Ethiopia ma aamini karo ma aaminayno ilaa ay ammaan la siiso annagu dhulkeeda annaga dhisan kara waanu naqaanaa sida muxuu ahaayeeto loo shaqaysto dadka Soomaaliyeed waa dad dynamic oo nool oo haddii ay helaan hoggaan fiican run ahaantii muxuu ahaa awood badan leh taariikhda waa la socotaa waxa weeye waxa iskoolaha dalka ka dhisanaya waxa jaamacada ka dhisanaya iyagaa tireeyay iyo muxuu ahaayeeto isbitaallo waxa weeye Ethiopia mushkiladda ugu weyn oo naga haysataa waxa weeye ma doonayso Soomaaliya inay dowlad noqoto waxay rabtaa inaan iska daba ka wareegno maalinta dambana qabiil siduu u hoosgalahayo oo leeyahay idinkaa dowladda yeelaya dadka markii la gaajeeyo oo la duleeyo oo dowlad la'aan ku dhacdo waa isdiidaya dad badan baa isdiidaya laakiin waa dariska iyo dariska waxaan rabaa inuu noola dhaqmo sidii dariskii laakiin Zakariya aan ka dhex galo adoo iga raaliya ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa hadlay madaxweynaha Soomaaliya garab taagan yahay oo leh anagu waxaan diyaar u nahay inaan dawladda Soomaaliya u marno wax walba oo siyaasadda iyo amniga dhaqaalaha ku saabsan Soomaalida ayaan caawinaynaa ciidankeena waa ku dhimanaya bileeyin ammaanka Soomaaliya jecelna inaan sugno waxaas waxba kama jiraan ciidanka maanaga u dirsanay ciidan hadda kaga dhintaa ma jirta intay yimaadaan bay qabaa'ilka qubis ugu dhiibaan iyo rasaas waxay yidhahaan islaaya mararka qaarkoodna kuwa Soomaaliya oo caddayn ma hayna anaga ka BBC ahaan laakiin adaan dhameeya hadda maanta dhan baan aamusnaaya iidaa warka haye wado waxa weeye Ethiopia waxay samayso waan ognahay adna waa ogtahay Soomaaliya oo dhanna way ogtahay hadday kala hantoogayso wixii hore ha laga arko markaanu ka aragnaan waa aaminaynaa laakiin warigeedii allaad haddaa u tagtid ama adaragtid waxay ku leeyihin walaalaha ayaa tihin annagu ma naqaano waxaas waa ogaanay Ethiopia ammaan hana siiso annagaa dalka iyaga dhisanayna markaanu simanno laba dowladood oo isla eg noqono sidaanu awal baahan jiray baanu ganacsigii iyo muxuu ahaa xiriir wanaagsan hadday rabto la yeelanaynaa hadda xiriir lamada yeelan kartaan dowlad maahine daday kala firdhisay oo hubis ugu dhiibtay oo ilaa 80kii ilaa maanta ay ku dhex jirtay baanu nahay waxa weeye haddaanata warkayga waxaa looga joogay Ethiopia war ma ka yeelayna waxaanu ka yeelaynaa ficilkeeda ciidamada naga saarto dilka naga dayso isku dirka naga dayso ammaan ayna siiso intaanu dalka iyaga dhisanayno nabad nagu soo noqonaysa iyo midnimadeeday kala dhantaalaysaa waa loogyahay baddaas bay rabtaa inay tagto adeer waxa weeye waayahay xildhibaan Zakariya aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtiga ayaa nagu gabagaba waxaan u mahad celinayaa dhageystayaasha barnaamijka sida waxaan ula socday iyo ka qaybgalayaasha ambassador Saciid Yusuf Nuur oo safiirka Soomaaliya Ethiopia ha Zakariya Xaaji Cabdi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo qadka Nairobi isaguna ku sugnaa barnaamijka waxa isku soo duway Axmed Cabdi Nuur waxa inoo ballan caawa 9 fiidnimo inta ka horeysa waa bahda BBC ku dhaafisa nabadgelyo